bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogtaan kusoo dhowaada caawa iyo aragti cusub qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha waddanka Norway ayaa lagu wadaa in go'aano cusub ay ka soo saarto sare u kaca uu sameynayo xanuunka safmarka ee COVID-19 hay-adda socdaalka Norway ayaa shaaca ka qaaday in dowladda ay soo qaadatay in ka badan 800 oo reer Afghanistan ah Norway oo shaqaale caafimaad u diraysa dalka Haiti oo dhawaan dhulgariir iyo duufaano xooggan oo ku dhiftaan maamulka gobolka Banaadir oo ku baaqay in degdeg loogu soo wareejiyo maamulka laba ka mid ah isbitaalada waaweyn ee ka howlgala magaalada Muqdisho daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door korona iminkana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan waxaa sare u kacay dadka qaadaya xanuunka safmarka ee COVID-19 gudaha waddanka Norway 24 saac ee ugu dambeeyay ayay waaxda caafimaadka diiwaangelisay in xanuunka ay qaadeen dad ka badan 1600 oo ruux dadka xanuunka qaadaya ayaa haatan la xaqiijiyay in u badan yihiin dhalinyarada xanuunkan ayaa ah mid si aad ah ugu sii faafaya ardayda dhigata iskuulada ku yaala gudaha waddanka Norway haddaba ra-iisul wasaaraha waddanka Norway Erna Solberg ayaa lagu wadaa in maalinta berri ah ay qabato shir jaraa'id oo ay kaga hadli doonto sare u kaca xanuunka iyo weliba in dowladda ay soo saari doonto go'aano cusub ee lagu yareynayo faafidda xanuunka COVID-19 qodobkeena kalena waxaanu ku eegi doonaa dowladda waddankani Norway ayaa shaacisay in dhawaan shaqaale caafimaad ay u diri doonaan dalka Haiti oo dhawaan ay ka dhaceen dhulgariir iyo duufaano xooggan wasiiradda arrimaha dibadda oo la hadashay warbaahinta ayaa tilmaamtay in Norway gacan siin doonto dadka reer Haiti dowladda ayaa xustay in bilowga isbuuca dambe ay diri doonaan 45 ruux waxaana hogaamin doona agaasinka badbaadinta madaniga iyo qorsheynta degdega ah 19 ka mid ah xubnaha kooxda ayaa ah shaqaale caafimaad oo ay ku jiraan dhaqaatiir kalkaaliyaal iyo shaqaalaha ambalaaska waxaana la sheegay kuwa kalena ay la shaqeyn doonaan maamulka saadka amniga iyo waliba howlgalka xerada ay kooxdu ay ku nagaan doonto shaqaalaha caafimaadka ayaa dalka Haiti ku sugnaan doona ilaa iyo 6 isbuuc isla markaana caawin u sameyn doona dadka uu saameeyay dhulgariirka iyo dabeelaha ku dhuftay waddankaasi Haiti in ka badan 1,000 ruux ayaa ku geeriyootay dhibaatadaas oo ka dhacday meel 50 kilomitir u jirta caasimadda waddankaasi hay-adda socdaalka ee waddankani Norway ayaa shaacisay in dowladda ay soo qaadatay in ka badan 800 oo reer Afghanistan ah war ka soo baxay hay-adda socdaalka ayay ku xaqiijisay in dowladda soo qaadatay 860 reer Afghanistan ah dadka Norway soo qaadatay ayaa isugu jira 63 shaqaalaha maxalliga ee ka shaqeynayay safaaradda dowladda Norway ee ku taal waddanka Afghanistan waxaana warbixinta sidoo kale lagu xusay in 513 ka mid ah ay xiriir la lahaayeen ciidamada qalabka sida ee dowladda Norway ee ku sugnaa waddankaasi Afghanistan sidoo kalena waaxda socdaalka ayaa waxa ay xustay in 28 ka mid ah dadka la soo qaatay ay yihiin caruur aan waalid lahayn arintani ayaa imaanaysa xilli ciidamadii ku sugnaa dalka Afghanistan muddo ka badan 20 sano ay isaga baxeen isla markaana waddanka ay dib u qabsadeen ururka Taliban ayaa hadda ah kuwa si buuxda ula wareegay talada dalka Afghanistan iyagoo sheegay in dhawaan ay dhisi doonaan dowladda sarkaal u hadlay ururka Taliban ayaa warbaahinta ka hor xaqiijiyay in xilalka sarsare ee dowladda laga qayb gelin doonin dumarka reer Afghanistan qodobkeena ugu dambeeyana waxaanu ku eegi doonaa maamulka gobolka Banaadir oo ku baaqay in degdeg loogu soo wareejiyo maamulka laba ka mid ah isbitaalada waaweyn ee ka howlgala magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray amar ku socda isbitaalka Yardameele iyo isbitaal Jasiira kaasi oo dhigaya in muddo 7 gudihiisa ay ku soo wareejiyaan maamulka isbitaaladaasi afayeenka maamulka gobolka Banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in iyaga oo ku shaqeynaya dastuurka iyo shuruucda u degsan dalka isla markaana la tixraaciyo heshiisyada ku saleysan wareejinta iyo dadejinta adeega caafimaadka ee gobolka in maamulka gobolka Banaadir uu mas'uul ka yahay gacan ku haynta isbitaaladaasi
maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar iyagoo ku shaqeynaya dastuurka iyo shuruucda u degsan dalka isla markaasna ilaalinaya siyaasadda guud ee dalka iyo in uu ka hortago tallaabo kasta oo wax u dhimaya shuruucda xeer hoosaadyada iyo heshiisyada lala galo hay'adaha kala duwan ee dalka iyadoo la tixraacayo heshiiska ku saabsan wareejinta iyo daadejinta adeegyada caafimaadka aasaasiga ee gobolka Banaadir una dhaxeeya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir kuna taariikhaysan 7 bisha 2 sanadka 2021 kaasi oo dhigaya qodobkiisa labaad farqadiisa ja iyo ma in maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan agaasinka waaxda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda hoose ee Xamar ay mas'uul ka yihiin gacan ku haynta iyo maamulada isbitaalada Jazeera iyo Yardameli haddaba isbitaaladan sare ku xusan oo loogu talagalay in loogu adeego shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir si lacag la'aan ah ayaa wuxuu maamulka gobolka Banaadir ka war helay in hanaankii loogu talagalay in loogu adeego bulshada hanaan aan ahayn oo u muuqda mid ganacsi iyo mid gaar ahaaneed ay u adeegayaan isbitaaladaasi sare ku xusan sidaa daradeed si loogu soo celiyo hanaanka adeega caafimaad ee lacag la'aanta isla markaana bulshada ku dhaqan caasimadda Muqdisho ay isbitaaladaasi ka helaan adeegyada ay ugu baahan yihiin wuxuu maamulka gobolka Banaadir ku wargelinayaa isbitaalada Jazeera iyo Yardameli in muddo 7 cisho ah gudahooda ay ku soo wareejiyaan maamulidda isbitaaladaasi isla markaana uu maamulka gobolka Banaadir muddadaasi ku magacaabi doono maamulka cusub ee uu yeelanayo isbitaaladaasi sare ku xusan sidoo kale mas'uuliyiinta warqadan ogeysiinta ku leh waxa iyaguna lagu wargelinayaa inay sidaas ula socdaan maasanadiin maamulka gobolka Banaadir ayaa amarkan cusub ku sababeeyay in isbitaaladaasi ay ka leexdeen hanaankii loogu talagalay inay ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Banaadir guud ahaan daawadayaal intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni caawa iyo aragti cusub tan intaan dib u kulmi doono waxaanu idinkaga tageynaa sidaa ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh